taariikh hore ayaa waxaa jiray qabiil reer Hilaal la oran jiray oo Carabta u dhashay waxa ay degeen dhulka la yiraahdo Najdi oo ah hadda meesha ay ku taalo magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga qarnigii afraad dhamaadkiisa iyo kii shanaadba qabiilka waxa hogaamiye uu ahaan jiray nin la oran jiray Xaasim al-Hilaali Xaasim waa uu dhintay xilkii iyo hogaaminta qabiilkana waxa kala wareegay wiilkiisii oo la oran jiray isaguna Sarxaan odaygu waxa uu wiilkiisa kula dardaarmay inta uusan dhiman ka hor in uu ka guursado dhul la yiraahdo dhulka sharafta iyo nasabka oo gabadhii uu calman lahaa uu dhulkaas ka doonto amiirkii Sarxaan ee dhalinyarada ahaa waxa uu waayay dhulkaasi meesha uu ku yaalo maalin kamid ah maalmaha ayaa waxa uu yimid gabiyaa carbeed oo rabay in uu gabay amaan ah tiriyo kadibna hadiyado iyo lacago abaalmarin ah uu ka qaato boqorka Sarxaan kaas oo u sheegay marka meesha uu ku yaalo dhulka sharafta iyo nasabka una tilmaamay meesha uu ku yaalo dhulkaas hogaamiyaashiisii iyo la taliyaashiisii ayuu ka haystay si uu gabadha u doono waxaana rag laga dambeeyo uu beeshiisa ka kaxaystay kamid ahaa nin la oran jiray Risqi oo ah ninka qabiilka dhan u qaabilsan dagaalgelinta waa hogaamiyaha ciidanka iyo ninka kale oo la yiraahdo Qaanim oo ah isaguna la taliye iyo nin la yiraahdo Faayiq oo ah garsooraha qabiilka goobtii loo tilmaamay ee uu gabadha ka guursan lahaa goortii la gaaray ayaa si fiican loogu soo dhaweeyay waxaana aad u maamusay odaygii beesha mas'uulka ka ahaa waxa uu Sarxaan uga warramay arinta uu yimid boqorkiina waxa uu soo bandhigay in uu muddo joogo si uu gabadha dooqiisa uga dhex xusho beeshan Sarxaan arintaas waa uu diiday asagoo sheegay in waqtigu ku yar yahay marka waxa la isku afgartay in la siiyo gabadha uu sifaadkeeda sheego goortii la gudoonsiiyay gabar kamid ah gabdhihii uu dhalay boqorka xukuma dhulka nasabka iyo sharafta waxa lagu xiray shuruud aad u adag oo ahayd hadii aad doonayso in aad la aqal gasho gabadhan waxa kugu waajib ah ilaa aad dhulkaagii aad ka gaaraysid in aadan gelin khaymadeeda aadna arag gabadha taasina aad bay uga adkay Sarxaan saddex bari goortii ay socdeen gabadhiina uusan arag ayaa uu shakiyay asaga oo isleh war Sarxaanow ama naag foolxun oo xabasheed ah lagu qariyay ama arintani tahay khiyaamo la soo degay ama dabil lagu dhigaaniyo asaga oo raba arintaas inuu hubiyo balantiina raba inuu ka baxo ayuu soo galay khaymadeeda waqti saqdhexa ah mise waxa uu ku arkay gabadh sida dayaxa oo kale ah gabar wax la quruxa uusan waligiis arag gabar wajiga uga eg dayax dhamays ah asaga oo la dhaqaaqay la jacaylna isla markiiba asiibay asaga oo leh alla qurux badana ayaa uu gabadha qoorteeda waxa uu ku arkay katiin aad u la yaab badan katiin aad u weyn oo ka kooban jawharta iyo dheemanka qaybahooda kala duwan waxa uu ahaa katiinkaasu katiin iftiimaya oo ka kooban 33 tuduc oo hadii la laaban noqonaya 99 tuduc kaas oo loola jeedo 99 magaca Ilaahay Sarxaan waxa uu ka furtay katiinkii gabadhii oo hurda asaga oo dawaqsan ayaa uu kacay meeshii qabiilkiisu degay habeenkaas waxa uu socod ku tagay baadiyaha goobtaas waxa uu ku dhacay geed u dhawaa badda jambigeeda ku yaalay asaga oo halkaas ku waabariistay baa wuxuu ku soo toosay asaga oo ay dul joogaan rag la yiraahdo qaraasinadu waa dadka ka qafaasha bariga kadibna badda inta la fuula maartay ku iibiyo suuqyada adoomaha lagu iibiyo Sarxaan waxay u sheegeen waqtiga laga bilaabo inuu yahay adoonkooda suu ku yiri war boqor baan ahay idaaya waxay ugu jawaabeen ama boqor ahaw ama taaj xirnow maanta laga bilaabo maxbuus baad noo tahay waxa uu yiri ii ogolaada geedkan ayaan ku qorayaa qoraale markaas ayuu inta dhiig iska keenay qalina dhiigiisii ka dhigay buu geedkii ku qoray asaga oo leh wiilkii Sarxaan ahaa ee boqorka ahaa goortii uu ballantii ka baxay waa ka maxbuuska noqday shamaa baa qalbigayga qaaday waan ku jeclahay shamaa sidii ayaa badda loo saaray raggiina ula tageen ayagoo la aaday dhulkii Roomaanka ama boqortooyada Roomaanka waxayna ka iibsadeen suuq kamid ah suuqyada Roomaankii asaga iyo dadkiisina bad ayaa u dhaxaysa oo uma dhawaa dalkiisa la soco sheekada qaybteedii labaad adiga oo kala socon doona page-ka aan ku leeyahay Facebook-ga ee Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif iyo kan YouTube-ka aan ku leeyahayba sidaas iyo la socosho wacan muuqaalkan waxa ay idin soo diyaariyay idinna soo jeedinayay anigoo ah Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif dhinaca Facebook hadana nagala socotid share iyo like ta inoogu qabo dhinaca YouTube-kana subscribe iyo like ka dhiirigelinta aad baad